السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر رواية شنالك مصطفى فيلم ميس ترتن أيام ودنا وميس كانوا صارن وحاوي سي كي يدرس له وأنا حمدان وأنا قدر waxaan maantay wadnaa tartan caalami ah oo aan qabanay labada YouTube ka qaseen waa Dirisla Cabdi iyo CK maxaad ka leedahay Dirisla Cabdi تيم دريس لورد كان كسلامية تيم دريس لا كان بكسلامية هرت نيكل دريس له كم صباح الله نكاسة سوقي تاجرن وهاي صح قال كاسو كاسو بحسد يوتيوب ولا بو ما قرأت اوكي شاتي عاد محو حرتان شاتي عاد واستانتا ما مليون كسو عم بحا مقلع ما مليون هدو كسو عم بحي هذا واكن عانو يا ما مليون مهوس جوجا وامي يدبع سيرو كسو عم بحا waxaas maroreeyay waa laga tagay laakiin hadda waa la tagay 3 YouTube leeyabo waa ninka YouTube-ka ugu taajirsan okay maxaa noo sheegi kartaa armiisa horta armiisa dirsa cad waxaan kaga sheegayaa reaction okay ninka reaction-ka lagama maro ninka waa halkaan waxaa leedahay miya reaction-ka aad ugu fiican yahay aad ugu fiican meesha aanu taan ka taageero qolkiisa soo joogo uu kalsoon yahay qol miya misjiko qolkiisa waxa jikada ka hadlaysaa waxa la ninka jiko ku duubay ninka la dirisle kama duuba jiko wuxuu ka duuba qolkiisa waliba qol qaas ah fiidiyoyada uu ku duubo YouTube-ka qaas oo qol laakiin ninka waxa ka fiican CK CK wuxuu aaday meelo badan oo caalam ka mid ah wuxuu soo boqday wadanka Kenya laba mar ayuu imaaday show ayuu ku qabtay hees ayuu qaaday heestiisana fanka ayuu ku soo beeray intaas ka bacdi afar bil ayuu marayaa heesta uu qaaday waxayna maraysaa 1.5 million ay maraysaa sax marka ninkaas sidee isku meel dhigaysaa walaal aad oo macnaha khibrad u leh xagga fanka xagga reaction-ka xag walba okay waxaan ka leeyahay Mr. Hayo ayuu ku magac dheeray kuma diideen CK Idris la waxa ay isku la barbar dhigo waxa waaye CK nin tago waay hatta Muhammad waana nin fanaan ah idigo hatta Muhammad laakiin CK ninka la Idris le waana reaction dadka yaqaan waa ninka CK reaction waa baxsha ninka uu bixiya laakiin ninka YouTube ugu horeeyay CK wuxuu YouTube ku jiray 2014 idigayso CK hadda dhaw soo caan baxay wuxuu ku soo caan baxay inuu soo YouTube le oo si fiican loo aqoonsanay inuu fanaan noqdo ma fahantaday ma wuxuu ku soo caan baxay fanka maxay ku joogaan fanka maxay ku joogaan soo ku caan baxsan oo hadana wuxuu ku darsaday sheegan hees leeyahay falaq oo ula tagay ninka leeyahay liil balina soo caan baxshay sida hees oo qaadaba liil balina soo caan baxshay bal lagu aqoonsaday heesta liil balina ma soo caan baxin waa ay isla qaadeen heesta asxaabta waa la dhageysan kartaan heestiisa CK It's your favorite boy, Cash Kid on the track. Lisa, waxaa ku talaalan yartii aan tabayay waxaa aan ku taabay shacaylkayadiisa taladiisa waxaa ku talaalan yartii aan tabayay waxaa aan ku taabay shacaylkayadiisa okay halkan hees uu qaaday ma uu caan ku yahay CK maya CK wuxuu soo caan baxay 2014kii wuxuuna ku soo caan baxay Dirisle CK shaati cad ayuu ku soo xiranayaa maama milyan ay wax ka sheegaya iyo dab casir ninkaana waxaas kuma saqajaamo waa nin respect leh big respect waana ninka YouTube ka qasay ninka idiga soorta kaaga faaloodo CK ninka leeyahay ma wax kale CK halkan hees uu qaaday horta sug ninka halkaas uu hees uu qaaday ayaa uu caan ku noqday oo YouTube loo iska hay laakiin caanimadu waxa kaga sareeyay CK ninka la sheeg Diris la kaga sareeyay shaatigaas ku soo caan baxay iyo milyanta wax ka sheegi jiray hadda laakiin waa nin tago oo talaabsaday Diris la intuu qaato banaanka u baax kaamris qaato oo heesoo duubo oo wadamadaas tago waxba lama aha oo sameey kara laakiin Diris la waa nin wax barto okay ninkan wax waa bartaa wax ma barta CK wax ma barto oo bumsa ah ninkan wuxuu ku magac dheeryahay ina Hayo ayuu magaciisa naas ayaa lagu naasaa
ninkaana wuxuu joogi jiray 2014kii wadanka Kenya ayuu ku qabtay maxay fan ku joogaan ninkaana nin khibrad ah waaye wuxuu haystaa PhD wuxuu haystaa degree ha haysto laakiin dhigayso aniga ninkan oraha ay sheeg CK waxaan bartay haysta falaq markuu soo qaadayo kahor laakiin waxaan aqaanay dirisle kahor adiga daawan laakiin wuxuu soo qaadi jiray reaction wuxuu ka bixi jiray maxay fan ku joogaan fanaaniinta Soomaaliyeed markaas si fiican loo aqoonin hay heestaan biso caan ku noqdo mooyee CK dirisle meel haysta dhigan dirisle caana oo dadka dhan ay wada barteen ninka YouTube ugu horeeyay wahay haddana saddex YouTube laga maraa oo ka taajir waxa kale dirisle cabdi ma saddex YouTube leh yes okay dirisle cabdi dirisle shaacade dirisle Soomaali CK muxuu hayaa فعلاق ما يروح كلامه هاي ما يحس وايد هذا كذا أنا وكو وريقة هست أول عشرة سنة أحسن كلام فيوز عداوت هست 1.5 هست محل سوق هست محل قضاء منطقة حال قضاء نيك اللي يراد يشغل البليل درتي سلطة مدحي سلطة كان شو أيو خبتي وحو إمادي كينيا لو مر أيو إمادي وفنان وين وين كان وفنانين الصومالي كو ديجيتال قهوة هاي هذا محكو دعاء سنين كله درسنا محكو استا درسنا عند الشارع عاد كوسو حرنايا قول كما بخ جيكا كما بخ مليون وحايا دبع سر وحوا كشيغا انت سؤال قبطه بس جيكو كما جيرو قول ugu jira qaas u yaab gudoo fiideo qol dhanaaba loo jarabo oo fiideoga ma fahanti ma dabca sir ma milyan waxaasna mar hore ahay laakiin caanimo asxaabtu meel ku qoro waa CK asxaabtu waxa in xasuusinayna ha ilaawina inaad share gareysaan subscribe dhaadaan gaarsiisaan dadka madaxda mideeda kale hoos noogu soo qora who is the best Dirisle Cabdi and CK maxaa حليها تيم دريس العبدي هالكان كسلامية نينك وعن فرق هالكان يا كسلامينا سلام سريع أنا تيم دريس كان بقى كسلامية لكن تيم دريس لي هو سوق قرآن نينك عن ماذا وجوه ما عادتك يوتيوب قصة بيرو عن كون نقدر نشوف قصة يوسف قرآن أوكي وحاس كنا قصة قرآن كرتين قفك التغيير يصير Dirisle Cabdi أما CK وانا كما سنتين داورشة داور كليب كان فضلا سبسكرايب شير لايك شير كومنتي وحقيقي